Assalaamu calaykum daawade soo dhawow haddii aad daawato aflaanta kuwa qaar ayaad ku arkaysaa in jilayaasha ay leeyihiin awoodo la yaab leh bal ka waran awoodahaasi haddii ay jiraan dad si dhaba u leh oo filim ama matalaad aanu ahayn dabcan muuqaalkan waxaad kaga boganaysaa dad leh awoodo la yaab leh oo cajiiba intaanan muuqaalka u gudagelin haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka si lagu ogeysiiyo muuqaalada xigana fadlan gambaleelka furo magacaygu waa Cabdixakiin Colaad ku soo dhawow muuqaalka oo dhammaystiran ninka aragtida fog ee sawirka maskaxda ku qaata Stephen Wiltshire waa farshaxaniiste Ingiriis ah ninkan awoodda ugu weyn ee uu leeyahay ayaa ah maskaxdiisa waxa uu caan ku yahay inuu sawiro meel ama shay uu hal mar arkay markii uu yaraa ayuu helay awooddan oo lagu magacaabo Savant syndrome Stephen ayaa awood u leh inuu sawiro magaalooyinka waaweyn ee caalamka isagoo kor u ka eegaya magaalada ama helicopter ku dul maraya guud ahaan magaalada si uu isha ugu dhufto sanadii 1992 ayuu waxa uu sawiray dhismooyin caan ah oo ku yaala magaalada Tokyo sanad kadibna waxa uu soo saaray buuggiisa American Dream oo ay ku jiraan sawirada magaalooyinka Mareykanka ee Chicago, San Francisco, Arizona iyo magaalada New York sawiradiisa ma aha kuwa qaldama oo wax waliba ama goob waliba sideeda ayuu u sawiraa maskaxdiisa aawadeed magaalooyinka London, Venice iyo Paris ayuu ku dul maray helicopter dawadeedna luuq iyo laami waliba sidooda ayuu u sawiray ninka birqabatada Liu Thao-lin waxa uu dhashay dalka Malaysia waa nin leh awood kale oo cajiib ah ninkan ayaa waxa lagu magacaabaa ninkii birqabatada sababtoo ah jirkiisa ayaa awood u leh inuu shaqeeyo sida birqabatada waxa uu ka qayb galay xaflado sadaqa aruurin ah oo uu ku soo bandhigay awoodiisa Liu Thao-lin ayaa jirkiisa waxa uu ku qaadi karaa culays gaaraya ilaa 36 kilogram markiiba isagoo awoodiisa isticmaalaya ayuu mar waxa uu soo jiiday gaari uu markaasi isku tijaabinayay jaamacadda tiknoolajiyadda ee Malaysia ayaa sheegtay in ninkan uusan jirkiisa ku jirin maado wax soo jiidata ha yeeshee ay tahay awood uu Ilaahay ugu manaystay sidoo kale waxaa la sheegay in qaar ka mid ah ilmaha uu awowga u yahay ay ka dhaxleen dabeecaddan iyagoo dhawaanahan lagu arkay awood la mid ah kan awowahood balse soo koraya haddii aad weli daawanayso muuqaalka codkaygana uu ku soo gaarayo aan ku xasuusiyo inaad subscribe saarto channelka adigoo ku maasan daawashadaada ninka biraha cuna weli ma aragtay qof cunaya biraha waa wax la yaab leh balse Mikel Lotito oo Faransiiska u dhashay ayaa biraha quuta ninkan waa madadaaliye waxaana uu dadka ku madadaaliyaa isagoo cunaya waxyaabaha aan dheefshiidmin balse isagu waxa uu leeyahay awood dheefshiid oo uu ku burburiyo biraha uu cuno Mikel Lotito habka uu wax u cuno ayaa ah inuu marka hore jajabiyo biraha kana dhigo waxyaabo yaryar ka hor inta uusan quudan baaskiilada gawaarida lagu dukaamaysto telefishino iyo qalabyo kale oo uu gogooyo ayuu cunayay ninkan si uu dadka ugu madadaaliyo ninkan ayaa caan ku ah magaca Monsieur Moshti oo magac Faransiis ah oo la macno ah mudanaha wax walba cuna isagoo 16 jir ah ayuu bilaabay inuu wax walba cuno kadibna uu dadka u soo bandhigo mar uu bandhig sameynayay ayuu waxa uu cunay qiyaastii in ka badan 1 kilogram oo bir ah isagoo ku cabaya saliid saafi ah iyo biyo aad u tiro badan ninka xakameeya barafka ninkani waxa lagu magacaabaa Wim Hof waa nin u dhashay waddanka Netherland waxa uu caan ku yahay awoodda uu barafka ku xakameeyo Wim Hof waxa uu baraf ku dhex jiray muddo 1 saacadood iyo bar ah isagoon waxba noqon ninkani ayaa muddo 5 saacadood iyo 25 daqiiqo ah tartan orda ku galay shaar la'aan isagoo kaliya xiran hoosgashi iyo kabo meel cimiladeedu ay tahay -20 ninkani ayaa 2 maalmood waxa uu fuulay buurta Kilimanjaro oo aad u qabow isagoo waxba xidhnayn marka laga reebo hoosgashigiisa madow iyo kabaha sanadii 2007 ayuu mar isku dayay inuu fuulo buurta dunida ugu dheer ee la yiraahdo Mount Everest balse uu ku guuldareystay maadaama isagoo qorshihiisa fulinaya uu dhaawac ka soo gaaray lugta bidix wiilka indhaha la misana leh Ben Underwood waa wiil u dhashay waddanka Ingiriiska isagoo aad u yar ayuu indhihiisa u beelay cudurka kansarka balse waxa uu leeyahay awood kale oo wax ku arko isagoo isticmaalaya jabaqda eco ee uu ku bartilmaameedsado wax waliba ee hor yaalla amaba u dhow waxa uu isticmaalaya carabkiisa si uu ogaado hareerihiisa markii uu soo yar weynaaday ayuu waxa uu sidoo kale ku weynaaday awoodda uu jabaqda u adeegsado isagoo nafsadiisa baray sida loo kaxeeyo mootooyinka iyo baabuurta isagoo shilna galayn ayuu beegsan jiray halka uu rabo sidoo kale safiitada lagu socdo ayuu waxa uu bartay sida loo kaxeeyo waxa uu sameeyaa wax walba sida in uusan marnaba indhihiisa beelin ayay tiri wiilkan hooyadii Ben Underwood waxa uu ka qayb qaatay ciyaarta dagaalka ee karatega isagoo wax waliba u isticmaalay adeegsiga jabaqda oo si wanaagsan u bartay taas oo ka dhigtay mid wax arka ugu dambeynna wiilkan ayaa sanadii 2009 u geeriyooday xanuunka kansarka kaas oo waayihiisa indhabeeliyay waad ku madsan tahay daawashadaada haddii aad is leedahay waa muuqaal anfacaya la wadaag asxaabtaada si ay iyaguna kula daawadaan